Conversation wada sheekaysi. I have wondered waxaan la yaabay how you speak saad ula hadasho to the people dadka. Weren't you been taught ma lagu soo barin miya how to respect sida loo xishmeeyo the adults dadka waaweyn. What is waa maxay the importance muhiimadda of your speaking ee hadalkaaga? Do you think miimaad miyaad ii malaysaa? You are nothing better than mad person. Qof wax ma dhaantid. Because maxaa yeelay you behave waxaad u dhaqantaa like brutal sida dabaalkii oo kale. And speak waxaad noo hadashaa like sida someone qof who doesn't know aanan ogeyn the value qiimaha to the one qofka he is speaking to uu la hadlaayo. Never say that word again. Ereygaas marka la dhihin ama hadalkaasi marka la dhihin. If you want haddii aad rabtid my peace nawadeyda. It is the reality waa dhabta. You never shy adiga marnaba ma xishmaysid of the adults dadka waaweyn and you do waxaadna samaysaa something wax that people hate ay dadka nacaan. Do you think waxaad u malaysaa what you are doing waxaad samaynayso is nice inay fiican yihiin? I admonish you waxaan ku waaninayaa to change inaad bedesho this bad behavior dabeecadaani xunta ah and respect aadna xishmayso the adult people dadka waaweyn.